garowe war degdeg ah madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa goordhaweed ka hadlay diyaaradii hawada laga soo celiyay asigoona ku tilmaamay isku day dil daawasho wanaagsan diyaaraddu hawada maraysa dib loo soo celiyay waa fal dambiyeed iyo isku day dil oo laga xisaabtami doono waqtigeeda waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay waxaan ka qayb galnay shirkii magaalada Kismaayo ka dhacay ee looga hadlayay dalkan sidii loo xasilin lahaa oo doorasho loo dhan yahay loo gali lahaa intiina halka fadhida kama warqabtaan saaka markaan garow ka soo baxnay ciidamadii hordhaca ahaa ee wafdiga dawladda Puntland xamar uga qayb gal lahaa shirka lagu egmaday iyo howlwadanadii dawladda ee madaxtooyada oo maanta safar u galay oo dhex hawada maraya ayaa laga soo celiyay diyaaradoodii waxa dhacday mas'uuliyad darro inta badan diyaaraduhu waxaad ogtihiin shidaalka meesha ay tagayaan bay marka dambe ka soo qaataan ay soo noqonayaan diyaaraddu hawada maraysa dib loo soo celiyay waa fal dambiyeed iyo isku day dil oo laga xisaabtami doono waqtigeeda laakiin inaan Soomaaliya xaaladeeda ka hadalno oo meel walba u tagno uga baaqsan mayno cabsi gelin waxaan inii sheegayaa Puntland iyo dadkeedu war dhow ayay wararkaas iyo wixii naga gudban ka soo sheegi doonaan laakiin intana waa hordhac aan rabo inaad ogaataan maadaama hadda ay dhacday